durniin iyo waxa marayay inuu kulankeenu u yaraa waqtiga u dheeraaday isagana inay ilaahay caafiya rajeenay idinkana weynii mahad celinaya kulankan caawe waxaan ugu magac daray Hoosow iyo Garowe macadka Iris institute baa qabanaya waxaan laga hadlayaa khilaafka arrimaha dastuurka ku leeyihiin dowlad dhiska Soomaaliya aynu ognahay Iris waa institution non-profit ah oo daraasado ka sameeya arrimaha waxbarashada arrimaha siyaasadda dowlad dhiska ammaanka niman dhalinyaro ah asaasay muddo sanad ku dhow kusidoo hadda jira kulankii kulanka horeeyay waxaan halkan Garowe ugu qabanay siyaasi Nuruddin Diiriye sidaas la mid ah waxay noo casuuman Cabdi Aadan Hoosow ee ognahay wasiirkii hore howlaha guud ee Soomaaliya la taliyay hore iyo gudoomiyihii gobolka Bay waa siyaasi iyo murashax madaxtinimo hadda 2022 uu ahaa waa siyaasi dhalinyaro ah oo marka badankooda aad eegto falsafadiisa siyaasaddu ay u qotonto dhanka dhalinyarada iyo wacyigelinta kulankan oo furnaa oo siyaasiyiinta iyo cid walba u furnayd waxaa ka marakac ah in ay dhalinyaro soo xaadirtay marka sababtaas keenaysa inuu ka markhaanti kacaysa macadku programo badan buu Garowe iyo meel kale oo ka badan oo Soomaaliyaba ka fulin doona waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo oo meeshiisa mikrofoonka u geeyo sababa caafimaad dartood siyaasi Cabdi Aadan Hoosow soo dhaw dhamaantiin waa horta waa ka xumahay inaan ka soo daahay waa bani aadam baa leeyahay bani aadamkuna waa daciif marka waa iska yara xanuunsaday intii aan wax typhoid la yiraahdo oo iska dhib badan dadka markii xoogoo aad warwareegto dadka qaar uu ku dhacaa ayaa injection iyo waxbaan soo qaadanay marka taas ka raali noqdo intaan ka soo daahay caawa waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah waxaan ka hadlaynaa contract bulshadeedka Soomaaliya waxa gaalada ay ugu yeerto social contract waa constitutionka ama dastuurka ayaan qayb ka mid ah taaban doona waa bad dastuurka aniga ma ahi constitutional expert laakiin waxaan ka sheekeynaynaa halku ka soo bilowday sida xaalkeeda hadda uu yahay meelaha aan waana arrin constitutionkeena wuxuu iska yahay political kaliya ma aha runtii waa political historical tan ugu daran waa emotional waa aad iyo aad bay caatifad badan ugu larantaa oo dastuurka marka laga hadlo qofba meel ayuu u jiidanaya marka caaw qaybaha aan dabooli doono waxaa ka mid ah problemka haysta dastuurka halku ka yimid waxaan kaloo ka hadli doonaa nooca dhibaatada jirta ay tahay saameynta ay yani ku yeelatay dowlad dhiskeena waxa loo baahan yahay in la hagaajiyo qofka hagaajin kara maskaxda aan u baahannahay inaan ku qaabilno arrintaas iyo visionka aan hore ugu soconayno intaasaa intuu ilaahay nooga ogolaado aan dabooli doonaa horta dastuurka sidiisaba 2012 aan ka soo bilowno kii ka horeeyay oo labadii jamhuuriyadood hore ma aha kanaan ka hadlayno waa midkan hadda dambe waa iska provisional buu ahaa welina yahay aniga akhrintayda aniga siday ila tahay political compromise buu ahaa dadkan uun si uun hala isugu geeyo oo wuxuuna loo yabyaba iska ahayde national consensus ma ahayn wax laga fariistay ummadoo dhan qayb ay ka ahaayeen fikir walba la tixgeliyay ma ahayn aniga 2012
dadkii ka shaqaynayay baan ka mid ahaa dastuurka markaas dhowaan UK ka soo laabtay dad ka shaqaynayaan ka mid ahaa ilaa dad adiga dhowr boqol oo qof ah yaa meesha la geeyey iyagiiba dadkii u akhrinayay oo talada weydiinayay oo ayaan ka mid ahaa laakiin Soomaali oo dhan ma ahaayeen ma ahayn 800 iyo 1000 qof wax noocaas ah duruufaha qasbay laakiin 1000 qof ma matali karin yani dastuur markay noqoto aniga fikirkeyga marka national consensus ma ahayn wuxuu iska ahaa political compromise oo si tanaasul siyaasadeed oo wuxuun hal la bilaabo ayay iska ahayd maadaama dhibaato badan waddankeena uu soo maray waxyaabaha muhiimka ahaana waa oo ilaa hadda doodahooda ay socdeenna waa sida awoodda loo qaybsanayo madaxweynaha awooddiisu maxay tahay ra'iisul wasaaraha waxyaabaha kheyraadka ah oo federal state iyo jamhuuriyadda madaxdeeda sare madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo yani state-kii caadiga ahaa qaybtiisa sare iyo maamul goboleedyada sidee bay wax u qaybsanayaan doodaha noocaasa unresolved bay iska meelana way isaga hor imaanayeen si fiican looma qeexin institutionadii loogu talagalay in haddii isqabqabsi meesha uu ka dhaco wixii sixi lahaana runtii lama samayn oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga ah ninkii xalay joogay may fakeraan markaan joognay waxbaan ka soo qaadanay arrintaas haddii la isqabsado waxaa la rabaa wixii ilaan bani aadan wuu isqabsanaya bani aadan dad wada nool oo waddan wada leh oo siyaasaddu waa hardan marka waa la isqabanaya waxaa la rabaa marka haddii la isqabto inay jirto wax dadkii kala saaraya institution dadkii kala saaraya marka lama sameyn natiijada marka maxay noqotay natiijada waxay noqotay madmadow badan inuu ku jiro dastuurkii yacni wixiisu ay ahayn wax from A to Z nadiif ah oo wax walba waxa la sameynayo sida loo sameynayo haddii dhibaata ay ka dhacdo qofkii xallin lahaa wax walba kuma caddayn natiijada marka taasay noqotay waxay kaloo keentay kalsooni darro u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada mistrust maadaama wax kala celinaya aysan jirin qof walba marka inuu is ilaaliyo uu jiraa war ama lagu soo socdaa ninka maamul goboleedka jooga uu jiraa waa lagu soo food leeyahay meesha baa la rabaa in laga qaado ra'iisul wasaaraha uu yiraa madaxweynaha xilkii uu rabaa inuu ka qaado adna iska celi oo difaac uu sii galo si fududna la isugu diri karo iyo political manipulation oo qof walba uu qofka kale jallaafo u dhigayo oo uu ku dhagan yahay uu isleeyahay ra'iisul wasaaruhu madaxweynaha uusan dhaqaaqin hadduu dhaqaaqo xoog yeesho malaha adiguu ku dhibaateyn doonaa madaxweynuhuna uu dhihi karo ninkan ra'iisul wasaarahaga awood badan hasiin waxaa laga yaabaa inuu ku dhibaateeyo qodobka labaad waa nooca ay tahay dhibaatada ka dhacday arrintaasu maxay tahay oo la isku hayo oo Soomaaliya isku hayso mar walba oo wax la sameeyo waxaa imanaya political crisis ilaan wax la isku ogyahayo qorano nadiif oo meeshii yaala male marka tallaabo walba oo la qaado maamul walba oo cusub oo yimaado waxaa meeshii ka soo baxaya political crisis political crisis waxaa ka mid ah constitutional crisis waxaa arkaysaa laba qof oo iska soo horjeeda oo dagaashan oo labadaba soo xiganaya dastuurkii haddana waa dhibaatooyinka jira ayay ka mid ah waxaa ka mid ah term limitskii oo la dhaafo madaxweynaha waxaa noo qoran 4 sano inuu leeyahay laakiin mid walba waxba uu ku darsadaa 6 bilood 1 sano 2 sano
waxbuu isaga darsadaa waa dhibaatooyinka yimid oo jira ayay ka mid tahay oo dastuurka sidaan sheegnay loo qoray oo duruufuhu ay keeneen in sidaa loo qoro dhibaatadii ka dhalatay ay ka mid tahay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka awoodda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mar walba ama bilowgii ha noqoto ama dhammaadka ha noqoto ama meel dhexe ha noqotee isqabanaya iyo dowladdii federaalka iyo dowladihii maamul goboleedyada oo iyaguna mar walba isku dhacay nooca dhibaatada jirta waxaa ka mid ah constitutionkii oo loo isticmaalayo sida hub oo kale oo qofka uu isticmaalo dastuurkaas sidaa qabuu leeyahay qof kale uu ku dhibaateynaya bedelkii la mari lahaa legal framework waxa la yidhaha sharciyaddii caadiga ahaayo intii la mari lahaa ilaan maba leh awooddii dowladeedna waa la shakhsiyadeeyey inta badanna waxay ku xiran tahay qofka markaas awoodda joogo isagaa iska leh waxoo dhanba isagaa leh madaxweynahaa leh geedka dadka dhagxaanta baabuurta waxoo dhan isagaa iska leh awooddiisu ma aha mid kooban madaxweynaha markaas joogo qof kastana waa inuu isaga la xaajoodaa oo u taga tusaalahan ra-iisul wasaaraha kuguma filna barkee waxaad ogtahay in laga daba imaan karo ama wuxuu kuu ogolaado la diidi karo wasiirka kuguma filna guddoomiyaha baarlamaanka kuguma filna waa inaad top guyga u tagtaa haddii maamul goboleed ay tahayna madaxweynaha waa inaad la macaamishaa dowladdii federaalka hadday tahayna madaxweynaha waa inaad la macaamishaa maxaa yeelay adiga iyo kulli waxoo dhan isagaa iska leh dastuurkiiyo aan qeexnayn baa iyadana dhibaatooyinka ay keentay bay ka mid tahay arrintaasu marka aan hadda soo sharaxnay saameyn nooceebay ku yeelatay dowlad dhiskeena waxay ku yeelatay isqabqabsigiioo horta batay madaxweyne walboo yimaado iyo rag kalaa is haysta si kasta hadday isu dabci yaqaanaan oo saaxiibo u ahaayeen mar hadduu tago meesha waa la isku dhegaya tusaale fudud waxaa kuu ah madaxweynaha hadda jooga iyo madasha waa un tiimkiisi isagaa ka tirsanaa waa is yaqaanaan si walba isu yaqaanaan laakiin haddana waa political stand off waa lagama maarmaan kuwa hadda iyaguna meesha jooga hadday mid ka mid ah uu yimaado tusaale ahaan kuwa haray iyo madaxweynaha hadda joogo iyagoo ku biiri doona haddana waa un sidiiba meeshii baa la tegayaa waa political stand off waa ma dhammaato taas marka waxay keentay horumarkii waddanka inay hor istaagto waqti badan baa halkaas ku dhumaya energy badan baa ku dhumaya meeshii baa la taagnaanaya waa state buildingka dhibaatada ay ku yeelatay electionska yacni iyo transitionkii oo la isbedelayay oo madaxweynaha jooga inta doorasho galo madaxweyne kale uu yimaado ayadana waxay noqotay meel ay mar walba musiibo ka taagan tahay oo wadnaha farta lagu hayo ayay noqotay waxay kaloo keentay arrintaasu institutiono tabar daran iyo sharcigiiyo aan shaqaynayn ma shaqaynayo sharciga inuusan shaqaynayn waxaa tusaale kugu filan kuu ah maamul goboleed iyo madaxweyne iska soo kala saaraya laba warqad oo maxkamad u yeerid ah waa aragteen bay ila tahay markii dambena haddana inta la islaamay la isla socdo waraaqihii maa laga noqday ma naqaan meel lagu sheegayna ma naqaan ma maxkamadahan muhiim ahayn ma naqaan ma iyagaan sharcigu qaban markii ilaan maxkamadahaas dad kale ay xukumeen oo 10 iyo dhowrkii sano 20kii sano la soo dhaafayay dad badan bay soo xukumeen oo dad baa hadda xabsiyo ku jira oo dhowr sano lagu xukumay qaar baa waqti badan xabsiga ku qaatay oo waqti badanna u harsan yahay qaar baa inta soo dhameysteen xabsigii waa dadkii xukumay dadkaas ayadaasna marka dhibaatadaasay keentay oo taas iyo
external actors oo mar walba faraha kula jira gaaladii waxaa la leeyahay safiirka Mareykanka loo tagay safiirka UK inta waa mar walba maamul walba oo yimaado waa diyaar waa loo baahan yahay ilaan baahidii baa joogta sidee lagu xalinayaa waa in constitution-ka la dhammaystiraa laakiin sidee loo dhammaystirayaa si inclusive ah ma aha madaxweyne markaas fadhiya siduu doono inuu u qorto constitution-ka dastuurka waa in la dhammaystiraa waa arrintaas waa qasab laakiin ma aha inuu qof samaysto waa in la sameeyaa maxkamaddii kala saari lahayd dadkaas oo ay ka baqaan ragga madaxweynayaasha waa ka baqaan maxkamadda dastuuriga waa in la kala saaraa awoodaha muqdisho iyo maamulada toos in loo kala saaro institutionada waa in la xoojiyaa oo commissiono independent ah oo madax bannaan la sameeyaa judiciary-ga la xoojiyaa baarlamaanka la xoojiyaa judiciary-ga marka uusan noqon wax madaxweynaha inta soo magacaabo isaga ka amar qaata madaxdana inay noqoto madax iyada iscelinaysa waa adag tahay laakiin qofka madaxweynaha waa inuu noqdaa madaxweyne isaga iscelin karo haddii xitaa uu isticmaali karo awood xad-dhaaf ah inuu iska daayo oo iska joojiyo iyo dhalinyarada oo 70% ah civic education waxa la yiraahdo in maaragtay loo sameeyo oo xuquuqdooda la baro iyagoo laftigooda is organize gareeyaan dawladda lacag ku bixiso joogto ah oo gaar waa budgetka dawladda ama maamul goboleed ha ahaato ama dawladda federaalka ha ahaato meel loo dhigo yaa samayn kara marka hawshaas waxaa samayn kara hogaamiyaasha siyaasadda baarlamaanka maamul goboleedyada ururada bulshada iyo dhalinyarada iyo dadka wax bartay ama maadi ha ahaato ama diinta yani culamaa diinka ha ahaadeen professorada doctorada ragga jaamacadaha taas marka waxay keenaysaa isbedel maskaxeed sidaan u fakaraynay si ka duwan inaan u fakarno waxay keenaysaa isbedel maskaxeedka aan sheegay waxaa ka mid ah in dadku ay ka soo laabtaan awood ku faanidda iyo awood ku tartamidda ee loo gudbo in wax la qaybsado dadku ay wax qaybsadaan laga tago sharciga qofka uu dadka u isticmaalo sidaa taqaanaan rule of the law iyo rule by the law baa la kala yiraahdaa rule by the law waa qofka markuu isagu ku isticmaalayo sharciga waa sida hadda Soomaaliya iyo wadamo badan oo soo koraya sheekada ka jirta weey macnaha rule of the law waa marka macal madaxweynaha iyo adiga kulli sharciga loo sameeyo rule by the law-na waa marka madaxweynaha uu inta ku soo diro ninkii uu shalay u magacaabay maxkamadda uu ku dhigi karo ninkaas la ii soo xiro oo inta lagu soo qabto sharcigi waa jira waa kaas adiga ninkii maxkamadda ma diidi kartid waa ku xukuma booliiska ku imaanayo ma diidi kartid darkii booliisku wata waa sharci laakiin waa sharci ay madaxdu isticmaasho ma aha sharci loo sameeyo power-kuna wuxuu noqonayaa yani maskaxdu waxay keenaysaa power-ku inuu noqdo mid dheelitiran lana xishmeeyo dadkuna ay xishmeeyaan isqabqabsigana provisional waxaan ku meel gaarka ahna waa ka baxayna wax walba xitaa wasaaradaha waa ku meel gaar agaasimayaasha waa ku meel gaar judges waa ku meel wax walba waa ku meel gaarna meel laguma gaari karo waa inay jiraan wax permanent ah in la dego dadku ay saldhigaan ayaa imaanaysa maskax ahaan waxaa kaloo imaanaya madax aan wadanka dhibaataynaynin oo wax kala baxayn balse wax gelinaysaan waa imaanaysa visionka aan u baahannahay oo midka ugu dambeeya maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay marka oo imaan kara markii waxaas oo dhan la soo maro Soomaaliya oo dastuurkeeda uu dadka gaashaan u yahay waa dastuur dadka difaacaya
أنا هين دستور مدحض الدفاعية أي فيشن كأن ربنا واكاس أود دنا أي تهاي أود دتكو أي سنكبقين لكن أي حشمية إسقاب سجنا لغو حليو وهذا هذا دجال إيو قعنك هذا الآن لغو حلي شرعي جانا the rule of the law وحلي شرعي جانا ونقضه أس كرسمي ده الدولة دسكانة ربيتان قف إيو سيدا ما أركتي أود إيو لان دايرة إيو أنا ماشي أسيست إيو أيسن نقون قف البنا حقوق وليه يبيرلي يا سامين كل سياسة جيلي ده سامين كله ودن كبي يجا معمولة simple ولي قدنا يجا سو معمولة لحدن كي ساير دايرات dagaaladii sokeeye markii la garay waa mar ay iyagu isdilayaan iyo mar ay dad kale dilayaan un bay ahayd so waa geeleyda kule si negative ahna haddana qayb negative ahna waa ku leeyihiin oo ah in dawlad dhiska uu dhaqaaqi waayana qayb ay ku leeyihiin maxaa yeelay siyaasaddu waxay u baahan tahay tanaasul geeleyda buugooda kuma qorna tanaasul waa in la kala guulaystaa waa in laan dheere iyo laan gaab iyo mid dhexe iyo waxaan ilaa ahaada weeyo oo hab mucjiso oo aan adduunyada meel ay ka shaqeeysan aan la arkin ayay ku shaqeeyaan isla taas ayay siyaasadana keenaan qofkii sidii yani baadiyaha markuu joogay habkii loo shaqeynayay ayuu modern state modern politics ayuu rabaa inuu uga shaqeeyo وأنا قصب يا أمريكا therefore ماشي تنازل للربي وزيرو سم جيم أيه كوشقيان زيرو سم جيمنا وأنا جا كقولي سنة جوش إذا وحنا كحقيقتنا يا إنات أديك قصارته absolutely 10% هذا هلي سو قوله 90% أنا جا أنا هلي ما يلي يوليه وأنا 100% أنا جا قولي استا adigana aad khasaartaa fail garowda taas kaliyana ma waa inay dadku arkaan inaan ka guuleystay waliba yani mucjisooyinka kamid ah siyaasadna ma ah sidaas siyaasadda waxa la rabaa saaxiibtinimo male cadawtooyo male is just waa on interests marna la isku daro marna la kala qaado xuduuduna waa dalka in la dhiso simple waa intaas laakiin meeshan sidaas ma aha so ديننا واقف يعين لكن سامين نيجاتيف أنا وكلين تاسو حرجنا إني ماشاس تكون قناع سنتان إن ده حسين واحد تري 10 الصومالي 10 عن كبران كرنا صوماليا كبران كران ساوث أفريقيا كينيا رواندا جيرماني ودمادان ودن مجران ها لكن صوماليا ارتدت ون دجنان أي وحكو برتان هيستميين سياسيين الصومالي ده كو هرت إناد wax barato aad wax fiiriso aad wax u dhug yeelato aad wixii hadhowdii xisaabaadii wax isku dhufsato waxay u baahan tahay deganaan inaad leedahay ma bahaynaba annaga deganaantaas haddaad tiraaniyo South Africa arrintaas ayay samaysay annaga aan ka faa'iideysan haddaad ula tagto wuxuu ku leeyahay niyo adduunyaad ka hadlaysaa annaga ma adduunyaan joognaa waa ka hor imaanaya qofku wuxuu ku leeyahay niyo Denmark arrintaas ay ku guulaysataa niyo bani aadana ka sheekeynaysaa mar qofka Soomaaliga isagaaba wuxuu qirsan yahay aaminsan yahay in adduunyada uusan joogin bani aadana uusan ahayn isaga qirsan marka 10 badan baa noogu jiray tanaasulka hogaaminta salahan hadda Nelson Mandela 27 sano ayuu Robben Island ku xirnaa markuu soo baxayna dadkiisa wuxuu yiri cadaankan leenaynaa bay yiraahdeen ilaan dadkaas dhibaatooyin aad u weyn baa loo geystay dadka madowga ee dalkaas cadaanka ay u geysteen laakiin haddana markuu soo baxay wuxuu yiri barnaamijii ugu weynaa markay isugu yimaadeen waxa aad middi iyo faashash iyo waxaad haysataan oo leedihiin cadaankan ku dirayna kulli badda ku rido yiri kulli hadda waxay dhahan dadkan waa cadawgeen haddaanan la hadlin oo aanan hor fariisan oo aanan wax isku darsan cadaawadaas goormay dhamaanaysaa yiri waayahay ilaan cadaawad in laga shaqeeyo u baahan tahay
si loogu bedelo is-afgarad. laakiin siyaasadda geeleyda waxay yaqaanaan uun ayaga in la isdilo hadhowna la yiraahdo xalay dhalay waxa la yiraahdo oo lack of accountability ah. adduunyada wixii dhacayna waa la sheegaa, wadda looga baxana waa la sameeyaa. Rwanda hadda tusaale maxaan ka soo qaadan karnaa transitional justice wax la yiraahdo ka dhacay oo dadkoo dhan baa is hor fariistay. aniga gabadhaadaan dilay, xaaskaaga iyadoo maaragtay lafa ah qalfoofkeeda ma u timid, haa anaa dilay, intaa maqnayd baan dilay, caruurtaada anaa dilay. sidaasaa la isu hor fariistay. lafihiina meel inta la dhoobaa la yidhi haye yani xusuus haydeen ahaato waa kana waxaan isku samaynay waa ujeedaan mar kale si aan loogu noqon. laakiin Soomaalidu ma qaadanaysaa fikirkaas? yaa is haystuu ku leeyahay markaad dhahdo war wadankan dadka dib u heshiisiin dhaba kama dhicin, haddaad dhahdo war yaa is haystuu ku leeyahay naga daa waxaas. waa markee sidaan xalay sheegay meel badanna ka sheegay Soomaalida go'aanadooda inta badan thought process kama yimaadaan. go'aano fikir maskaxeed maskax la shiilay ka soo baxa ma aha. waa knee jerk reaction. qofka caawad wax isku berrito waxbuu iskala soo kacaya, wixii buu ama dad ku dilaya ama lagu dilaya. 4.5 caqabad miyaa? haa caqabad waa tahay, xalna waa tahay. hadba sida loo isticmaalo ayay ku xiran tahay. annaga 4.5 tusaale ahaan waxaa la yidhi waxaan sidaan ha loo qaybiyo, laakiin qabiiladii tusaale ahaan 4ka mid ka mid ah haddaan soo qaadanno dadka ugu wanaagsan muu soo saaraa? maye ma soo saaro. dadka ugu qaabka darana laga soo saaraa 4.5ki. so haddii dadka ugu wanaagsan laga soo saari lahaa sida hadda aan waa dhaami lahayd 4ka iyo 0.5kaba. kow waxa loo sameeyey waxay ahayd in uun meel lagu gaaro hadhowna loo gudbo meritocracy. meritocracy waxaa waa qofka kartidiisa iyo cilmigiisa iyo fahamkiisa inuu meel ku gaaro. laakiin sida dastuurka aan ula fariisanay baan taasna ula fariisanay. kowdii baan maalima wax la qorqoray la yiri Soomaaliya isugu timaado si hadhow looga sii gudbo, laakiin annagu ma fikrinba. fikirkii baan iska daynay, wixii xumaa baan isku dilaynaa. goorma marka horta loo gudbayaa wax cusub? goorma la dhahayaa okay bahashan meel bayna soo gaarsiisay, sidee taayirada uga bedelnaa, taayiro cusub ugu xirnaa si aan dadkeena meel kale u gaarsiino. caabuqa dastuurka iyo tixraaca qof walba uu maaragtay isagoo laba qof oo is haysataad arkaysaa labadaba dastuur soo daliishanaysa. dhibka wuxuu yahay markii la qorayay baa habka loo qoray baa sidaas ah. yacni meelaha qaar waa iska hor imaanaya, isagaa iska hor imaanaya dastuurka. hadda ma la saxayaa? well ila ma aha, barke processkii iyo jidkii loogu talagalay iyo wixii iyo dadkii laftigooda in maaragtay inclusivity iyo wixii oo dhan kalsoonidii wixii ka maqan. so sida uu u qornaa oo dadka markii hore la isugu keenay, dadka qaar waxay yiraahdeen dawladda shisheeyaa ka dambeeyay. waxoo dhan baa shisheeyaa ka dambeeyay. markaas anagu waaba waalnayn. marka waxaa la rabay in xoogoo markaan isu nimid aan bani aadan oo kale inta u fikirna aan dhahno war dalkeen annaga soo malihin haa ma cid kale nala leh may okay bulshadan aan u fikirno, aan ka fikirno. tusaale ahaan hadda ma joognaa 2000 haa okay 2030 xagee joogaynaa dadkeena? wiilka markaas dhasha 30 jir markuu yahay oo 2030 marka la joogo ana waxaan ka soo qaadayaa maalinkaas 2000 wixii aan sameeyay. haddii la dhihi lahaa xagee wiilkaas u joogayaa male. hadda kama fikirno 2025 30 sano hadda kadib wiilka hadda dhasha gabadha hadda dhalata 30 sano kadib xagee bay joogaysaa? ma dawlada kale ayay adoomo u ahaanayaan mise waxay ahaanayaan Soomaali qurux badan, laga xishoodo, laga cabsado, baasbooradooda la qiimeeyo, fiisa aan la weydiinay ahaan doonaan? now cid ka fakaraysa hadda arrintaas inay jirto ila ma hadday jirtana waa cid la aamusan oo aan banaanka la soo istaagin. Cabdilatiif wuxuu yiri Soomaaliland oo ka maqan. well xilligii waxaan la isku yabyabayay Soomaaliland meesha hadda ay taagan tahay ay taagneyd waxay leedahay aniga waa go'ay. marka looma taagnaan karin.
si uun in looga qayb geliyana waa fiicnay laakiin horta ma la gaarayba doodu ma gaartay heer annaga inta sal dhigno aan dhahno sidee arrinta Somaliland u qaabilnaa inta badan walaalaan nahay baa loola tagaa Somaliland walaalaan nahay dad walaalaan nahay iyaguba waa og yihiin inaan walaalana wax in loo sheego u baahan ma aha laakiin real issues bay ayagu miiska soo saartaan caadifad badan way ku jirtaa doodooda laakiin haddana wax la inkiri karo ma aha sidee marka u qaabili karnaa arrinta Somaliland waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay dadka noogu macquulsan inay qayb ka noqdaan waxaas dadka loo dirayo doodaas qayb ka noqonaya waa inay noqdaan dad wixii soo dhacay og yaqaan marka wixii inta meel isugu dad walaalaan nahay ma kala tagi karno ma kala aniga ila ma aha the right approach inay taas tahay laakiin xilligaasu ma ahayn xilli iyagu la sugi karay ama iyagu inta loo sheego ay iman kareen James Swan baa tiri caqabad ma yahay ma ku yahay sideedaba haddii faragelin shisheeye ay ku soo gasho eedadaa iskale male qofka ku soo farageliyay male waayo James Swan Kenya iyo Ethiopia iyo Rwanda looma diro ama waxaa jirta dhahayso adaab geeri iyo nucleate ninbaa wuxuu yiri adaab geeri iyo nucleate in la cadaabo horta geerida laftigeeda ii jilcisay bur haddaanan dhiman goorma la cadaabi lahaa horta in dad lagu soo diro oo ay ku dhexdhexaadiyaan oo aad dhahdid nimankan maslaxa Soomaaliyeed ma wadaan iyo waa wadaan iyo aad u kala carartaan horta maxaa keenay space kaas adiga abuuray waayo problemka kugu weyn waa walaalkaaga maalin walba maamul goboleedkaas federaalka isayaan federaalkii baa maamul goboleedkaas ku xadgudbaya waxaas sheeko caruureed bay noqotay markaan dad يعني بدهooda la isku haysto in ay sida u fakaraan oo sidaan u dhaqmaan 26 sano 25 sano ayagoon ka fakerin mustaqbalka caruurtooda maalin walbana waa dhalaan wax maaragtay sidee marka James Swan iyo u saari kartaa eeda Ingiriisku waxay dhahaan a bad workman blames his tools farsamo yaqaanka xun alaabtiisu eedeeyaa bay dhahaan buriskan waa qaadara yahay bahalkan biinsahan iyo mashaqeeye iyo isaga waa problemka ma aha alaabta ma buriska ma tan ugu dambayso oo Cabdilatiif uu weydiyo waxay xormanihin annaga asagoo arintii u soo qaatay Kismaayo iyo dadka tagay iyo dawladaha dariskeena iyo sidoo uu sheegay inay dad la tageen anigu horta dadka la tagay in la tagay iyo ma aqaan wuxuu dhan baaban ka niyad jabay marka xitaa ma daba galin laakiin xormatid sida xor ku noqonaysaa ko walaalka baad is haysataan in la idin dhexdhexaadiyaad u baahantiin labo waxaad abuurtay space ay dad kale idinku soo faragashtaan saddex waaba lagu biilaa afar ciidamo shisheeyaa ku jooga oo iskuma filnid sidee xor ku ahaanaysaa ma ahaan karta mucjisadu inay arintaasu jirta ma waa inaan meelba looga socon oo la iska dhex fadhiyo meelba looma socdo sidaasaa la iska yahay marka ma tihid xor Zainab waxay weydiisay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada maxaa maalin walba ay qorta isugu jiraan wax kale celiyaan jirin bani aadamku hadday meel isugu yimaadaan waa inay jiraan shuruuc kala reebaysa xitaa diinta aabbaha guriga odayka ah
hooyada caruurta iyo maamulkii iyo wixii oo dhanba iyaduna maamushaa labadoodu waa tashadaan diinta waxay u samaysay stages yaa wax furi kara yaa gabadhu maxay furiinka ku dalban kartaa shuruudahee looga ogolaan karaa aabbaha maxaa looga baahan yahay all these things dadku wax kala celiya haddaysan jirin maxay marka ku kala badbaadayn waa maximization bani aadamkuna siduu ilaahay u sameeyeyba waa selfish wax kaa celiya waa inay jiraan qofka bani aadamka maraykanka aad ogtihiin New Orleans magaalo la yiraahdo duufaan ka dhacday cisbitaalada dadka gabdhaha lagu kufsanayay waana America markaas islaam baan habeen TV-ga kuwa CNN mu aha ma aqaan it just became like Somalia idoo ku haysan maqlay oo meeshii Soomaaliya kale ay noqotay idoo wixii xun baa naga naloo soo qaataa noqda bulshada markuu waxay tahay isla dadkii normalka ah ayaa haddana cisbitaalada dadku kufsanayay waa wixii law and order-kii baa meesha ka baxay so law and order-ka meesha hadduu ka baxo bani aadamka waa selfish inuu wax badsaduu rabaa kursiga wuxuu isleeyahay ka tegin iska joog macnaha lacagta wuxuu isleeyahay qaado intaa qaadan kartid meel yar fawda hadday ka dhacdo waa aragteen dukaamada la jabsadaa qofka intuu la ordi karo laakiin fawda haddaysan jirina dukaan ma jabsan karo u fiirso ilaahayna qur-aankiisu wuu nagu sheegay alhaakum atakathur buu leeyahay wax badsasha idin ibtilaysa maxkamadda dastuurka maxaa loo sameyn waayay bay tirisay maxkamadda dastuurka hal sabab baa loo sameyn waayay maxay tahay madaxweynayaasha waxay ka baqayaan wax iyaga ka awood badan inay yimaadaan ma ogola madaxweynuhu wuxuu rabaa sida kuu sheegay madaxweyne kasta nooc doona ha ahaado ee wadanka markaas jooga kan hadda kuwii isku xigxigay kuwa soo socda all of them ma rabaan maxkamad dastuuriya why iyaga waxay rabaan in ay ahaadaan awoodda ugu dambaysa ultimate power ultimate authority يعني wuxuu rabaa adiga iyo hooyada aabaha walaalaha dhagxaanta guryaha kulli inuu isagu lahaado rabaa madaxweynaha wax yac ka dhahayana aan la helin maxkamadda dastuuriga haddii meesha ay soo gasho go'aan uu qaatay bay maaragtay dhihi kartaa may go'aankaas dastuur maaha awooddaadu meeshaas ma gaarsiisna Mr. President hadda ugu dambeysay madaxweynaha Mareykanka maxkamad xaafadeed baa ka diiday iska daayay tii dastuuriga Kenya waa aragteen dhowr jeer oo election la isku qabsaday maxkamadda dastuuriga dhaysan no ama maxkamadda sare therefore annagu ma rabno madaxdeena in wax naga sareeyo meesha ay ka soo baxaan sababtaas aan loo diiday